mukhtaar raganimadaad ku sumayso ma leedahay ballan ilaahay waxaan ku qaadayaa oo ballan ilaahay aan ku galayaa mukhtaar isagoo daacsanaya dharag darteed hadduu u dhinto farmaajo inaad adiga u dhimanayso haddii adiga lagu waayana gabadhay dhashaa u dhimanayso sinjigaaga inuu dhuunto oo sinjigay sii dhalaan adduunka ay cadibaad ugu noolaadaan ilaa ay China u tahriibaan waa ballan ilaahay waa anaga nagama aqli badnid waxaan habeen iimaan u soo taaganaa waa mukhtaar dartiis ma lagu sheegin lacag ma rabno waanu kaa diidnay xilal waanu kaa diidnay futadii hooyada ku xarey baan ku niri soo xafantama haddana waxaanu u taaganahay oon u soo taaganahay waa un isla mukhtaarkii amina ma aaminin soo marka mukhtaar ma xanuunsano 5 jiniyo ka fiyo yahay aabi awood aad leedahayna mukhtaar kuma dili kartid farmaajo doqon fala dagan aqligiisa yarka ah wuxuu siiyay inuu u dhaqmo sidii Masar madaxweyne Mursi waxa loo diiday xaaskiisa iyo dadkiisa inay la kulmaan ay arkaan sanada ayuu xirnaa cidna iska meena wareysan jirin dadkiisu mar walba way tagi jireen wala soo celin jireen marka dambe waa la sumiyay farmaajo aad quwadaas yaa ku siiyay ma Mursi baad moodo maxaa mukhtaar adeertan waa Soomaaliya horta taas fahan faladaganoo laguma sheegin bululeer yaroo dhacuuri waligaa isku soo godgodo fulaynimadan arkaad leedahay anoo naaga ka adag anoo naaga farmaajo haddaan gacan ku saaro wallahi aad sidii aygi u rafanaysaa markaas anaga noo afar ay oo adiga aad bariiska siiso oo idaacada aad adigu samaysatay wari ama maxamed siyaad baradis moodee dadka ma aragtay raadiyaha muqdisho ku gubaysan jiray ee gada aabaha iyo awowga ugu saxiixay maxamed siyaad baradis moodee ma tiid adeerde taasaanu ku soo qabanaynaa ma tiid siyaad bare idaacada free anagu baleenahay anaga 12 idaacadood noo samaysanaysa kalab fooqal kalab idaacada eeyaha ay ku qoraan af Soomaaliga sida loo qoro ay khatiyaanka ku yahay Soomaaliga la qoray fiiriya ilaahay idinku dhaariyo idaacada ciyaalkan qashinka ee farmaajo bariiska uu siiyay soo qorayaan bal fiiriya waa jaahiliin cirba jaxjaxano laga keenay caabud waq waa gaalamada ku ugu hooseeya iyaga isdhaadhaama farmaajaha xogaa iyo ron afraxbo ingiriis u akhriya oo broken kuwan waa kuwa cirba jaxjaxan markaas ay rabaan intay ani idaacad ii soo qoran inaan hayin nacam iraahdo why I'm carrying so education if I'm just gonna listen to you wariya siyaasadna waanu idinka badinaa gacan hadii la dhahan waanu idinka badinaa farmaajo rag hadda hadda korna waa ku riye mukhtaara qarax ku dhintay dhex baan ku iri caawana waxaan halkaas u fadhiyaan farmaajo ku leeyahay ya rag hadda tahay hooyo ku dhashay haday hooyada habeenka dhalatay wiil dhashay mukhtaara dhintay dheh rag hadda tahay ballan ilaahay oo ilaahay igu ogya waxaan kugu la galayaa anigana ya maalka tirado mukhtaar baa dhintay inaan diyaarad soo raaco damba waa la isugu iman ama inaan diyaarad soo raaco ballan ilaahay baan kugu galayaa oo ilaahay igu ogya wadna arki doontaa anoo taagan bay dhaba hadaadan arag waad arki doontaa waxaadan arki jirin inaad aragto ee raganimadaad ku tiraado mukhtaar baa dhintay ma leedahay afkaaga ilkahaaga aad moodo cagaf lagu qodayo beer farmaajo inta soo dhahdo mukhtaar baa dhintay ma dhihi kartaa raganimadaas ma leedahay wallahi mawjadu way kugu soo jeedaa oo billahi mawjadu way kugu soo jeedaa oo tallahi mawjadu way kugu soo jeedaa boqolaal baana loo aasi mukhtaar waadna arki doontaa sinjiga gaalamadow haddana saaxadda Soomaaliya laga tirtirin hooyaday hambiyay foolataan ku iri aabahayna abtirsiimihiis ma wato haddaadan farmaajo eedin haddaanan anigoo taagan bay dhaba aadan i arag cid kale wallaana mas'uuliyadeeda qaadanaynin anoo shakhsiyan ah oo bay dhaba dhex taagan dad farmaajo i arki weydo oo sida eedooyinkay daba jeex wata wariya adeerka maxamed siyaad bare eedooyinkay maanyafulka daba jeex bay kala soo dageen do you know that dhimasho iyo geeri anagana looguma hanjabo laakiin mukhtaar anagoo dhan baa u wada dhimanayna كلب فوق الكلب رير مايلان دن هردada waxay kaga kacaysa waa taase rag mata hooyo ma ku dhashay mukhtaar xanuunsan damba ma maqli kara wariya mukhtaar waa faras sidaadoo kale boqol kaniini kuma socdo waxa xanuunsan ee qandadabsan waa farmaajo
وفرماجة قنددف كحنوسا لكن مختار هدي لده وفرس عانجل إيا بير نظيفة إيا صار إيا عانو إيا مسقو كسو كراي عذير صعب أنت معه وأنم فرس هبينك هو يديس دشان اللي باح بي دشاي نوت قال مدو أديكو كلا إني دشاي أب إيا أبترسيمي إسر بالإسدير يهي وإنا سنسرية حسابتا ku darso farmaajo Soomaali way isa sinji taqaanay xisaabta ku darso halku adeerka maray hadaadan marin hadaadan adigana musqulaha ku dhex baqtiin sidaadoo kale gaalamadow ku abtirsadaan kaniisadii ilaa la beelay goondar gadaasheeda ku yaala layga keena bal hadaad rag tahay aniga waxba soo dirin caruur yar yar oo aad cabud wax ka keentay oo cirba jeexan oo qurmuun oo xataa sida dharka loo xirta aan aqoonin ilka waaweyn oo labadaas dacal dhareerka ka daayo aniga hay dhihin waxba ii soo qorqoreen waxba iima soo qori karaan kuwaas anaa wax u qoraya adeer do you know me anaa wax u qoraya iyaga التعليم حقي وبالبيتي مو بالبيتك يا كفر سمرك waxa idin sheegaa walaalayaal waa beentiisi iyo farqadiisi farmaajo muxtaarna uu soo baxaya bishaaro ana idin leh muxtaar uu soo baxaya farooci fala daganna tabti adeerkiisu ku baxaya ma ninkaad aragteen bululeer buc laga siiyay hadda waa bululeer waa adduunka meel walba ka joogto bululeer waa taqaana bululeer buc laga siiyo halka qab isku soo yiri markaas uu ku leeyahay waxa dhintay muxtaar wala kaasa muxtaar dili kara abkiis iyo aabihiisna kuma dhaco abkiis iyo aabihiis iyo sinjigiisii hore ku abtirsanaya gaalamadowda aha ee laga keenay laala beela wallahi san ku dhicin awowgaaga hore sixirka caabudi jiray was kalabkiyo aan laga kalabsanayn war wax sinjigiisa sixir caabudo ee aleelooyin farqaha ku wata war macabdiya ku tirma aragtay muxtaar baa dhintay dheh macabdiya diini sada diini baa ku tir muxtaar baa dhintay dheh oo macabdiya muxtaar dili karta عبدي السحر يدي سحر كذا إسلا دمراي آخرنا عذابك إسلا جلايان تصبت فرماج حسابتك ودرسنا سا الرجل ماذا إذا حداد لذي هوي كل شيء هذا كل شيء مختار بعد أنت لك تيدا سكسور تاس ما ركتا تاسن كل جناه تاسن كوها يستا تا هذا واتا ضد بويس بران ضد به ويس برانه مختار بعد أنت على لصق سوق تجو كلاب فوق الكلاب وربلدية ودلانكي هو يدي للماذا بري ورما أنا قاعد مشانا بريسا ورمختار دبجح بوتوف كعير سنة على الشباب أدنى أبي أود أدلير هاي يا أو أضا حتى بلا عيدنا برنامج أتكسو استاكتد مليهد look at that ما مختار بديل كرتا فليه كذا ديسكوسي داي بلولير للريدي هذا هو بولولير لقاسي هنق قبكوي أنا ناقا نحي والله أنا دمران نحي ما كاس كلية هاي مختار بين انت كسر خورة وبسايدي هاي روس مرقص واحد دايس أنا أرجني مختار بين انت كسر خورة fuck that shit look at that shit who are you that's a simple question uneducated fool stupid diagnose you have all of that والله بلا انتم مرايكن كصدوا سنو جوغا لغوليه if I could be there 30 years I would speak English like American sabataagana hanigana isagana hatta markuu ingiriiska ku hadlayo waxaad u malaysaa xiriyaha qaxootiga dadka ka yimid ka fiican xiriyaha qaxootiga Kenya dadka Englishka ku soo barta farmaajo ka Ingiriis fiican war ma ila aragteen if I could be there 30 years I would speak good English because I'm educated so let me tell you guys that laakiin fucking diagnosis nin ah oo adiga gaas awliba farmaajo mursi madaxweyne mursi dawladan baa haysatay oo masar la dhaho masarna qabiil ma yaala hadan ku sheegayay adiga maadaama aad qabyaalad ku soo weeraraysid muxtaar oo qabyaalad ku dil isleedahay ogo muxtaarna qabaa'ilu ka dhashay qabiil ma haya muxtaar 32 qabiil buu ka dhashay xisaabta adna taas baad ku darsanaysaa marka ma soo gashay walaal qaaliya aadan ingiriis ustaad aadan ingiriis ma soo gashay waxaan rajeynaa in ustaadka virus badana loo dira maalin walba ula jira waxaan ilaahay ka baryaa
yes بسم الله وكفى سلام الله عليكم روس مرقوس أديك إيا دادك كداوانيا برنامجك أدادهينيسو waxaan rabaa inaan idin mahadnaqo sida aad ma arkayse barnaamijkan aad u daadahaynaysaa waa barnaamij xasaasi ah sida runta ah maxamed cabdillaahi farmaajo autismka qaba ujeedada uu ka leeyahay in website-yada lagu soo qoro mukhtaar robow waa uu dhintay danta laga leeyahay marka aan fasirno oo aan faalla ka bixino wax kala maahan mukhtaar 100 jeer ayuu ka caafimaad badan yahay ninka isagu sida aad sheegtay xaarka isku sii daynaya ee ilkaha farkeetada oo kala leh habaaran oo ma arkayse maraykanka waalida ay ugu qoran tahay qaadka ku qaybin jiray daraadna bullerkii la tuuray oo 26 juun aan wada ognahay qofna aan inkiri karin durbaankii dam la siiyeyba xaarkii ka yimaaday isagoo sidaas leh macnihii saxaradiisu xataa nakruumada rajabeetadeedu macnihii hadda macnihii aan qaadin villa qashin ay dhaqi weyday oo baddaasi lagu tuuray sidaasi daraaddeed marka siyaasadda uu ka leeyahay waxaa weeye mukhtaar hadda wuu caafimaad qabaa 100% laakiin waa ay macnihii qorsho ay dejiyeen hadda ka hor waxaad og tahay roosay sida aad idinkuba fashiliseen tiimkan muruge iyo macluul maxamed autism uu hogaaminayo waxaad ka dharagsan tahay ood og tahay in qaraxyo ay soo dejiyeen hadda ka hor magaalada muqdisho siyaasiyiinta u dhalatay iyo koonfurta lagu xasuuqayo qaraxyadaasi iyada ah annaga Soomaali xataa nooma soo gudbin dadka kaliya ee fashilay dad badan oo maanta nool madaxda macnihii muqdisho ah waxay ku nool yihiin madaxeeni caddaana noo soo tabiyey in qaraxyadaasi la doonayay in hoteelada muqdisho ilaa iyo habar qadiijo silsilada laga dhigo hal maalin ama hal habeen markaas kadib sidaas lagu dilo madaxweyne mukhtaar robow iyo siyaasiyiinta muqdisho intii la dili karo howlgalkaasi uu socdo waa tii aan hore u fashilinay aan sheegnay daydka taariikhda intaan la gaarin meelihii ay ka soo galeen isla markaana warbixinta aan ku cadaynay og farmaajo iyo nisa zakariya ninka la yiraahdo arrinkaasi isaga waad fashiliseen haddaad tihiin ummadda Myland ee u taagan badbaadada ma arkayse dadka dulman ee geeska Afrika adinkoo ah jugta culus iyo warbaahinta Southern Media Cooperation waa lagu guuleystay laakiin haddana haddii iyagu ay dejiyeen marka qorshaha hadda ay dejiyaan wuxuu yahay mukhtaar robow sidii maxamed mursi oo kale in ay macnihii u dilaan bay rabaan hadda qorshaha ay dejiyeen ilaahay baa wax dila laakiin sida ay doonayaan munaafiqnimadooda laakiin adinka ama dadka koonfurta Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay ka hordegaan iyaguna maxaa yeelay siyaasadaha villa qashin farmaajo iyo muruge iyo macluul ay ku shaqaynayaan dad ka dheereeyaatiin ummadda Mylandow ama ummadda koonfureeday dad ka caqli badan oo ka wax ogaal badan baatiin marka qorshaha iyagu ay diyaariyeen qorshe kasii kulul ayay koonfurtana ku sii tallaabsatay oo caalamkayba u sii sheegtay qorshahaasi inay damacsan yihiin farmaajo inay sameeyaan waatan maanta oo maanta ah wufuudii qaramada midoobay muqdisho laga sugaayay si mukhtaar robow xaaladiisa ay ula socdaan saa ogtahay roos maalmahan waxay hawada soo geliyeen in madaxweyne mukhtaar robow kaliya laga haayo in uu jiran yahay in isbitaal digfeer la dhigay waxyaabahaas oo dhan propaganda macnihii ay soo fidinayeen bay ahayd si dadka quus loo geliyo isla markaana qorshahoodu ay ku dabaqaan macnihii shirqoolka ay doonayaan in ay sumeeyaan ama ay dilaan ay ku dabaqaan bay ahayd islaantii cuntada u karinaysay isku dayeen in ay ka eryadaan inkastoo arrintaasi caalamka uu soo dhex galay isla markii dunida ilaa iyo New York Geneva meel walba qayle ay ka soo yeertay saa awgeed marka mukhtaar robow ninkaasi autismka qaba ee dabadiisu cirbadda booyada la eg habeen kasta intuu kambaruursado mambaraanaha marka looga siiyo
dhiigga fayga uu ka soo yiraahdo sidaa ku nool 24 saac dhaqaatiirtii xataa urka dabadiisa nacday ee turturtay aad ogtahay saa u nool waxa ayaan darro ah Soomaaliya in nin noocaasa habeen kasta dabadiisi faleebo booyad la eg lagu mudo ku nool ku socda inuu madaxweyne uu u ahaado waa wax lala yaabo waa macnihii waa nasiib darro ku habsatay bulshaweynta sinjiga Soomaaliga ah ee kulaala geeska Afrikadaasi baddaasi cumuqa weyn ee xeebtaasi 3,333 kilomitir macnihii xeebteedu ay tahay square nasiib darradaasi hadday dhacday marka hadda waxaa muuqanaysa marka in qorshihii iyagu ay rabeen idinkuna aad sii fahamteen oo aad sii hordegaysaan caalamka mar hore aad wargeliseen haddana macnihii qorshihii ay damacsanaayeen ay rabeen propagandadooda in ay ku dabaqaan ayaadba bannaanka soo dhigteen for that instance marka waxa ay dili karaan iyo wax ay ku samayn karaan madaxweyne Mukhtaar Robow haba yaraatee markaan ma jiro garantiye ayaanu ka dhibnay biidnillaahi baari waxaan intaas sii dheer magaalada Baydhabo iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo dunida oo dhan saaka u dambeysay hadda daqiiqadii la soo dhaafay website la leeyahay caasimadda oo murudo iyo macaluul u shaqeeya maanta waxay soo galiyeen oo Mukhtaar Robow waa dhintay dadkii oo dhan magaalada wayna soo waceen markaas waxaan dhana waxa socda kama jiraan annaga idin xaqiijinayna in caafimaadkiisa 100% u yahay idinkana og magaaladay aadeen been inay tahay soo ogaadeen haddana maxay ku bedeleen madaxweyne Mukhtaar Robow oo qaraabadiisu inay booqato loo diiday lagulaha madaxweyne Mukhtaar Robow ayaa geeriyooday inkastoo warkaasi la beeniyay ay u rogeen haddana u fiirso macnihii mar walba sidii iyagu ay rabeen qorshaha inay ku dabaqaan ayay warkana u soo qaadaan sidaasi daraaddeed waa ku mahadsantiin sidaa u fashiliseen waxaan u gudbaynaa marka qodobka aan diiradda saaraynaa adigu hadda aad ma arkaysa ka shanqarisay ciwaankana ku ah waa galmudug arrinteeda roosaysaad ka warqabto heshiis la soo dhoodhoobay oo aan u cuntamin ummaddan barakaysan ee jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland degan ayaa ma arkaysa gaalkacyo waa lagu soo gaaraa layidhi cabdi qaybdiid iyo 17 markay u keeneen maanta qorshe waxay ku soo dareen aad halis ugu ah ummadda mayga ah qorshahaasi waa maxay qorshahaasi wuxuu yahay waxa la yidhi waxaa lagu heshiiyey waa war saxaafadeedkii ugu dambeeyey in dadka mayga ah ee degan galmudug jooga jagooyin laga siiyo maxay tahay jagooyinka la siinayo ciidamada ammaanka baa lagu darayaa madax baa laga dhigayaa u fiirso madax salaaxa ugu qatarsan oo dhiigaagi 12 qofood lagugu marsiinayo bal u fiirso arrintaasi waxaa soo dejiyay gamaamuurtii cabdi qaybdiid ugu horeeyo ma cabdi qaybdiida ku naxaya waa maya laakiin siyaasadda ay soo dejiyana waxay tahay shalay haddii jaga lagu siinayo dhibkan intuusan dhicin maxaa jaga lagu siin waayey oo aad ciidamada iyo ma arkaysa aad uga mid noqon weyday waxaasi waa waxay kama jiraan xilligii dadka la siri lahaana ama la siri jirayna lama joogo idinka indho waa ummadda danta la leeyahay marka haddaan fasiro waxaa weeye nimankan Maryland ka soo jeeda ee jooga galmudug guraceel iyo matabangaroore maba tegi karaane nimankan ma arkaysa wax laayay nin ana qano oo Suldaan Cali wato oo mar walba komentiyada al-shabaab igu dhaho ayaa hadda wuxuu leeyahay raxaween in shabaabnimo loo laayo waxa u sababa kuwan oo al-shabaab taageeray waxaanu ognahay Zakariya Ismaaciil Xirsi oo nin mareexaan ah oo Suldaan Cali ina adeerkiisa in ilaa imaanka maanta uu nin shabaab yahay misana uu nabad sugida haysto qaabilsan yahayna qaybta qaraxyada waxaanu ognahay ninka shabeelow iyo toos weyne iyo bardaale shabaabka jooga amiirka u ah inuu nin mareexaan yahay oo la yiraahdo hebelka Saalax Xasan hebel Saalax la dhaho oo nin mareexaan oo wagardhacya wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo sheegayaan gobolka Bay oo dhan al-shabaabka ay u afduuban yihiin inay niman mareexaan yihiin
at the same time waxaan mar walba ku soo celcelinaynaa hal amiir ma ahan hadda gudoomiye ma ahan horjooge amiir tuulo haysta tuulo shabaab ka taliso ama aysan ka talininba hal ninoo amiir oo meeshaas ku magacaaban oo Mayland u dhashay haddii uu jiro noo keena $1,000 baanu siinaynaa qofkaas waa hadda hal amiir oo tuulo ka taliya ama hal amiir oo ka taliya meel uun ma rabna anaa gudoomiye ma raadinay amiir yar oo raadinaynaa oo Mayland u dhashay oo shabaab ah hadduu jiro noo keena annaga isqancinaynay laakiin 5 sano iyo 7 bilood mukhtaar oo shabaab maxaa tiri kula dagaalamay gobolka Bakool marka la yiraahdo waa shabaab anigi taageera in la yiraahdo shabaab baa tahay farmaajo garaado ku tahay Zakariya Ismaaciil Xirsi Zakariya Mareexana la yiraahdo shabaab ma ahan shabaabku miyuusan ahayn magac aniga la igu sumadaynayo iyo maamul ay iyagu wataan baado fiirso shabaab waa villa Muqdisho shabaab waa hawiye iyo daaro shabaab zaid fiiriya zaid waa nimankan Mareexan shabaab aabihiis waa Mareexan maanta nimankii xudur lagula dagaalamay shalay iyo daraad ninka wata waaba iloobi rabay iyo ku xigeenkiisa iyo ku sii xigeenkiisa saddexda nin ay yiri Bakool waxaanu ka rabnaa guri walba oo raxween leedahay $25 baanu ka rabnaa oo isbaare iyo baad ah nimanka lagula dagaalamay maanta ninka koobaad waa nin Mareexana ninka labaad waa nin Mareexana kan saddexaadna waa nin Majeerteena aad iyo aad meel kale haddaan kaa tuso Roosay buulaxaawo waxaa iskale dadka mayga ah laakiin meeshii ugu horreysay oo argagixiso laga aas-aasay koonfurta Soomaaliya buulaxaawo way ahayd yaa xoog ku haystoo degan farmaajo beeshiisi waad ogtahay Itoobiyaanka 90 iyo dhowrkii helikobtaray ku soo weerareen isla suldaan baan ku dhintay kala sheekaysanaya isug wuxuu yiri aadanow mukhtaar iyo lama simi karo yiri Zakariya waayo Zakariya mukhtaar uu ka soo horeeyay Zakariya farmaajo waa uu ka soo horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisii ayuu yimid Zakariya okay Zakariya qaraxyadii hargaha iyo saamaha qaraxyadii ma aragtay ka dhacay jaamacadda kulli isaga qirtay inuu geystay Xasan Sheekh Maxamuud markuu u yimid Zakariya xabsi guri buu ahaa bannaankana madaxa umuuna bixin karin maalinku farmaajo yimidna garaada lagu taxay think about that jawaabtaadu waad haysataa dad qof wax fahmaya tahay raxaweyntu baratay adeer argagixiso iyo kuwa wax qarxiya villa Soomaaliya ay fadhiyaan beled xaw waa ku sheegay gees kalaan ka tusaadana Puntland argagixisada dhuuda iyo saliid dagaalka yaa ka bilaabay waan dareemi karnaa meel kale haddaan ka tuso marka dadka mayga ah Soomaaliya waxa la yiri waa dal argagixiso waana meel burcadbadeed ay degtay Roosay burcadbadeedda maraakiibta caalamka qabsanaysa nin maya ma ku jira maya intaas ayay qabtay Mareykanka maxkamada lagu saaray Ingiriiska maxkamada lagu saaray meel kasta ilaa Belgiumka nin may ah oo may u dhashay oo macnii burcadbadeednimo inta lagu soo qabtay maxkamad la saaray ma aragtay waa maya may wixii ka baxsan baa burcadbadeed iyo argagixisa Soomaaliya keenay iyagaana ku adeeganaya Hormuud yay tahay shirkadda Hormuud oo America George Bush macnii block saaray dhaqaalaheeda waxa la dhigi jiray albarakaat ayaa la dhigi jiray marka sadar cad waa su'aal ka dhan macnii waxay iyagu yihiin ayay doonayaan inay kugu shaabadeeyaan si laba dhaban lagugu toogto adiga fagaarahaasi inaad dambiila tahay lagaaga dhigo adoo dulman oo madluum ah marka isku soo wada duub arinta galmudug aadanow hal mid aadanow erayga eelay baan kugu sii darayaa waa waxay iyagu yihiin adiga inay kaa dhigaan magaca boqortooyada eelay waxaan ognaa inay 3 boqor lahaayeen eelay ayagana ay dadka maymayga ku qasbi jireen in qaxootiga la qaabilo intii maxamed siyaad bare boqortooyadaas uu gacantiisa ku burburiyay ayaa waxa la soo ciyaarsiiyay sheeko la dhaho boqortooyada
puntland waxaa la keenay boqor burhaan oo shiid ah saxarana dhex degan waxaa lagu yiri boqor burhaan waa ammaan boqortooyadii eelayna waxaa lagu yiri waa cay waa kadib markuu maxamed siyaad barre buuraagi intuu kugu hoos yimid uu kugu dudumiyey uu kugu dilay uu kugu dhacay oo gabdhahaaga lagugu korkufsaday oo lagugu baabi'iyey oo beerahaagii la dhacay waa magacii boqortooyadaadii qaxooti la qaabilo number 1 u ahayd adduunka cay lagaaga dhigay laakiin magacii sharaftii iyo faankii adigu aad lahayd boqor waxaa la siiyey puntland fadhiyo oo isagaba aan waxba haysanin oo saxaro kor degan oo waad aragtaa boqor burhaan waa ammaan eelayna waa cay inkastoo annagu aanu taariikhda haysano buugaagna aan qori doono filimaanna aan kasoo jili doono qasrigii qaxootiga lagu qaabili jiray buurha kabana wathuma wallaahi aan dhisi doono laguna kala bixi doono laakiin maskaxdan waxaad aniga ahay adigu noqo waxaad tahayna aniga isii waa wax muddo lagu soo socday taariikhda ayaaba caddaynayso librariyada Itaaliya iyo wadamadan gumaystay Soomaaliya meel kasta laga heli karaa lama inkiri karo geedi abaabow oo iyagu ay u bedeleen geedi shambow ay dheen waliba heesa laga sameeyay oo macnaheedu gabayga yeeraay iyo ma arkayse gurbaankan baxaya geedi shambow waa lagu guuriha gabayga yeeraay guxaan baxaya iyo gurbaankan oo geedi shambow lagu guuriha macnaheedu sacab ma qariso taariikhda dadkan ma arkayse hadda magacooda la xumaynayo waa dadka iyaga soo dajiyay yaa kamid ahaa fiiri shalay markay yimaadeen iyagoo qaxooti ah waa la sheegan jiray dhul iyo guri yaa la sii jiray anaa magacyada ku sheegay dad reer galmudug ah 91dii kadib galmudug noqday laakiin ka hor macnaheedu boqortooyadaasi sheegan jiray oo dhaqaatiira ma ku sheegaa askar faasha la yiraahdaa reer buurakabu macnaheedu ku qaaraan ahaa ku qabiil ahaa buurana iyo dadka la yiraahdo ayaa kamid ahaa marka waxaasi hadda inaan waqti isaga dhumina maahan inaan waqtiga uga faa'iideysanaan u baahannahay xaqiiqda si aan dadka u taabsiino galmudug siyaasadda taalo waxay tahay heshiisku sheega maanta la soo gaaray roosay oo shacabka aan u sheegayno oo khatarta aan uga digayno warqadaha la soo qoray warqadaha waxaa soo qoray galmudug waxaana loo dhiibay macnihii rabbi salli ma maqashay macnihii salliga ma baksanayno laakiin kuwo rabbi salli cala alxabiibi muxammad wa cala alcaalim oo lema bun ku raadinaya salliga nebiga oo iyagu isdiray oo macnihii alwaaxa looxaan ah oo maayaan matelnaa yiri waraaqaa loo dhiibay akhriyaa la yidhi maxay akhriyeen marka waxay yidhaahdeen dadka galmudug degan ee ka soo jeeda webiyada jagooyina inta laga siinaya maxaa shalay ciidamada ammaanka loogu dari waayey siyaasadda meesha ku duugan waxay tahay waxba aanoonan ku dheeraan hadalkuusan ila tegin ee roosay waxaa la doonayaa in lagu sasabo ciidamadii amniga lagu daray la yiraahdo waxaad og tahay dadkan markii waan soo guuraynaa ay dhaheen in isbaara loo dhigtay baa ogtii oo dadka hadda soo baxay diyaarada ay ku soo baxeen qof adiga ku xasuuqay ma jacayl buu kuu qabaa deegaankiisii inaad ku sii hakato waa maya guuritaanka sababta loogu diiday waxaa weeye dadkan waa la canaaday waa la dilay beri ka saa dambe koonfur bay tegayaan koonfur markay jaanta dhigaan markaasi kadib halaag bay samaynayaan mid kasta oo galmudug ka soo jeeday dili doonaan way tabaabushaysanayaan meeshan ha lagu celiyo waay steebka labaad ay qaadeen marka galmudug waxay tahay dhiigga dafiraadiisa marka laga yimaado qodobkan ee ah ha lagu daro ciidamada saraakiil ha laga dhigo waxaa loola jeedaa hantida ka taalla koonfurta Soomaaliya ee barwaaqada badan ayay rabaan inay ku badbaadsadaan war cabdi qaybdi dum ma ahan iska ilaali waa nin lafaha soo jajabsaday oo og awoodda dadka mayga og macnaheedu xaaladan haddii ma arkayse si wanaagsan aan lagu dhamaynin inay xumaanayso og waa asxaan kuma hayo waxaan ula jeedaa marka mayga waxaan weydiinayaa fiiri dhul laba wiil shalay oo dhagax ah laba wiil oo iyagoo garba qaawan ay tageen meeshaas oo dhan 6,000 oo qof aa naga joogtay 6,000 kala bar way soo baxeen kala bar kalena gobollada kale ay u sii qaxeen ilaa iyo Somaliland jamhuuriyadda barkaysan su'aasha isweydiinta leh waxay tahay dhulkaasi
dhagaxa ah inta la idinku susabo la idin laayay hadda jaga la idinka siinaa ciidanka amniga la idinku daray la yiraahdo idinkuna markaasi hantida maguuraanka ah dhulkiina barwaaqada ah sida maalin kasta loo ixtilaalo oo loo deganaado ma ku qancaysaan su'aashu waa taas marka heshiiska kan ugu daran ee halista waxa weeye oo dadka aan u sheegayno jaga ka qabanaysaan jaga marka la idin sheego waad waalataan annagu dameer ceel ku dhacay koyna waa lagu dayaa sheekadan way dhaaftay in badan ayaanu koy galmudug aan ku daynay dameer ceel ku dhacay oo kale laakiin ka soo bixi waaye waxaan ula jeednaa ummadda mayga haddii ay si bareer ah ugu sirmaayaan heshiiskaasi la soo dhoodhoobay ee beenta ah oo maldahan oo dhul dhagaxa adigu aadan lahayn laba askari inta lagaa siiyo oo lagu yidhaha taliyo beenaa tahay garaadooyin waaweyn lagu siiyo oo meediyaha lagu keeno haddii aad dhaafsanayso dhulkii jannada ahayd ee biyaha loo geeda saaray barwaaqadan dhulkan iyo webiyadan la isku gooyey lagaa ixtilaalayo oo weliba isbaara lagaaga dhiganaayo goortaad san lahayd haddii aad dhaafsato adiga iyo yeelkadaada iyo halkii aad ku cirib go'i lahayd dagaalku wuu bilowday ciidamada bakool bay isku shubayaan may way israacday marka waxaan ugu dambayntii aan ku soo gabagabaynayaa haddii ciriryaal iyo dhululyaal la isu keeno haddii macnihii waxaruhu aysan is salaamin haddii dameeruhu ay dabada is aadiyaan waxaan u sheegaynaa dameer laba nin saaran tahay ii fansaar ma lahan nimankan heshiis weeye waxayna heshiis ku yihiin inay ku dhangalaan dhul dhagaxa dhul barwaaqaa kuma doorsan karaysid iyo garaado laba been ah dhiiggaagii macnihii dhulka lagu qubay waxaan caddaynaynaa oon sheegaynaa si naxariis dara leh jawaab naxariis dara leh waxaan siinaynaa galmudug waxaanu leenahay laga bilaabo saacaddaasi wiilka mayga ah ama gabadha mayga aad aragtaan madaxa ka soo gooya nolosha ku guba laami ku dhalaaliya haddaad kari kadhaanna dhagaxaantii huud iyo tamuud lagu xalaagay oo samada naarta laga soo karkariyey xataa macnihii ku soo dila waxaa annagu aan ku faraxsannahay kuna niyadsannahay in aan kala miiranno ma iyo maxaa baan kala nahay asalba cayriinkaan ku kala dhammaanaynaa waxba idinkama rabno kuwaan inta joogana annagana hal xabba ma ka soo reebayno deegaanadooday u soo noqonayaan intaas ha ku bushaaraystaanu ama ma arkayse ha ka naxaanu hal asxaan ah iyo hal jaga ah oo koonfur ay idinkaga baahan tahayna ma jirto aan kala miiranno annaga caafimaadkeenna sidaas aan u aragnay go'aan la qaatay oo ma arkayse gobonnimaana weeye jamhuuriyadda barakaysan ee maygana saasay macnihii ku tashatay ama haddii matooradiina aad qaadan lahaydeen iyo villooyinkiinii iyo haddii bartooda ay idiin taagnaan lahaayeen oo la gubi lahaa idinkay idiin taallaa halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaya waxaana leeyahay oo aan ma arkayse weedhaydii mar walba aan ku soo gabagabeeyaa war guuguulahaasi garoonka beenta ka gowgowda leh gumaysi diidaha sheegga iyo waxbaan kuu garanayaadoodan gafanka iyo goobaha iyo gabadhan guurguurta gaarilaha iyo garuunlaha ee geeraarka ku ammaani afar gaaraha joogta wax kale uguma geeraarin war goon cidla ah bay wadaa gaardis badane waana idin salaamayaa waqtigiina qaaliga roos adna waa ku mahadnaqayaa insha allah idam alle jannatul firdaws shukran anigana kolley hadal ustaad aadana ii dhameeye wax yar baan se ku darsanayaa walaalayaal galmudug laba qalad bay isku dulgalaysaa qaladka koobaad oo ah in 19 ay uun 9 ka dhigeen alfiiriya gaalkacay waxay tiri 9 kaliya baa anaga loogu yimaadaa 19 aha dilka afartii wiil ee beesha shiidlo u dhashay in raxaweyn laga saaray afartii wiil ee jareer weyne raxaweyn intii laga saaray baa weliba waxaa la yidhi xaq ma lahan ka daro dibi dhal ka daro dibi dhal haddii raxaweyn laga saaro oo odayaashii jareer weyne loo yeero oo afartiini wiil magtoodii waa taasaa la dhihi lahaa ciilba ma qabeen waxaa la yidhi magba maba lahanba halkeedaas ay joogto
number 2 dadka intoodii badnaa way soo baxeen maqasheen okay 40 iyo dhowr qof galmudug ayaa Puntland u dhiibtay sabab Puntland waa kawaanka lagu qalo dadka raxanweyn kawaanka raxanweyn lagu qalo waa Puntland anagoo dhan taas wadoog Puntland boosaaso inta nooga jirta iyo inta lagu toogtay xisaab ma lahan kufsigu waa la cadadna marka Puntland annaga waa no Hitler keena haddaan raxweynahay waa Puntland 40 qof oo ay galmudug soo qabatay ayay Puntland u dhiibtay Puntland iyo galmudug way isdagaashanaayeen mihilbaha raxweyna lagu heshiiyay Puntland hilib raxweyn inay cunto jannada u malaysaa inay ku jirto qof raxweyna cunaan reer Puntland waxay u haystaan in ay jannadii galeen galmudug iyagoo taas og ayaa loo dhiibay ninka wiilasha soo doonaya qaadanaya ana dilaya ken arabow ana gowracaya ama nini abaw ken abaw aniga baa garanaya kan dhahayo iyo kan doofaar ku dhalay iga qaba leh way istagaashanayeen haddaad raxweyn tahay haddaad wax fahmaysid waay haddaad wax fahmayso waay kan galmudug ka soo waday iyo kan Puntland ee ku soo qabanayaba waa laba nin oo isdagaashana laakiin markay adiga ku arkaan waa heshiis hilibkaagu aad buu u macaan yahay haddaad raxweyn tahay dhanka galmudugna hilibkaaga aad buu u macaan yahay dhanka Puntland hilibkaaga aad buu u macaan yahay وهذا أدو عقلك عجا كشقي سينيسو أدنى هالكنا جرون يجلب لك دمان لا ذا هاي يجسر جذي إمارتي هذا ما إمارتي محوق هاي شنط على ماضي أبى جبل توني وحد كذا دمان لا ذا هاي إمارتي محوق جرائي هذا ولا يكورون هاي الله محان إيري جرة نمحان إيري جرة ما شاء الله إلهي مركو وحكوضو تواتاسو كلا قرر أيان إري قيسياشي الرحوين إيا قران إري نمانكي أورو مقبل كود ريدي إيو قران إري مقالة دافت ما مقالة دافت أورتو مسوا دقمو مسوا عارونو على إتحال دافت laba qabiil oo gaal jeclaya isbaaradeeda isku kor dagaalaya waa marka hadalka ku darso habar gidirna isbaarooyinkaas ay isbaara kala ka qaadataa halka beelweynta shanta caleemood ay isdhiibtay kufsiga dumarka ka sii daran dilka ka sii daran la isma weydiiyo ra'yi baan idin soo dhiibaya marka hal ra'yi konton wiil oo garra ah daafad hala geeyo hadday tolnimo jirto konton wiil oo garra ah daafad hala geeyo konton wiil oo garra ahna hala geeyo ma aragtay baraawe waa hadday tolnimo jirto raxweennimo hadday shaqayso garrow ilaahay ha idin guuleeye cadow waxba idinkama gooye geesiyadeeniyaa tihiine hana gabina hooy gablantee hana gabina gargaar degdegaanu idinka sugaynaa beelweynta garraan taasna leeya wax ka badan looma baahno konton wiil kaliyaan u baahana ood u soo dirtiin daafeed iyo konton wiil ood u dirtiin baraawe cadow iyo nacabaa laynayo dilaya mooryaan baa haysata imaado idinku qabsada konton wiil oo garra ah hadday yimaadaan baraawe dekada gacanteennay ku jirtaa konton wiil oo garra ah hadday daafeed tagaan gabar dambe oo raxweyne kuma dhex ooynayso daafeed iyo baraawe boqolkaas wiil hana loogu diro beesha garra iyo malaaqooda hala raadiyo idinku kaalaya qabsada garra waa hawiye waa sugaaye garra hawiye waa sugaaye alxamdulillahi rabbil caalamiin garra waa niman raxweyne waa niman nasaba waa niman digiloo la yaqaana oo digow madreewiin ku abtirsada did ama yeel garre digow madreewiin ay ku abtirsadaan marka waxaanu u diraynaa odayaasheena iyo dadkeena waa idin baryaynaa labadaas magaalo wax ka badan ma rabno waxaanu doonaynaa konton wiil oo garra inaad geysiin daafeed
konton wiil oo garaana aad geysiin baraawe ayagu ha qabsadaan ayaga guddoomiyayaal ha ka dhigtaan haddii isbaaro la dhigayo iyaga ha dhigtaan wax alla wixii la samaynayo iyaga ha noo sameeyaan annagaa u ogol walaaladeen ciidamada ha noo tababaraan garow 70 milyan oo maxay ahaday 30 milyan oo oroma ah ayaad Soomaali weyn ka difaacdeen 30 milyan baad Soomaali weyn ka difaacdeen garow konton wiil baa ku filan daafeed konton wiil baa baraawo ku filan baraawi daafeed ba idinka iskale dumarkiina kufsi iyo dil baa la iskugu daraaya dagaalka idinku socda ilaahay baa xaalkiisa oge kaalayo imaada kaalaya garow noo imaada garow ilaa ay baydhaba idin baahanay bal oromadan intaad iska dhaaftiin noo imaada Soomaaliya oroma isku daaya garow Soomaalida difaacayso waa kuwa adiga sinjigaaga tirtiraaya garow Soomaalida difaacayso waa kuwa sinjigaaga tirtiraaya tolkaabaa kuu baahana imow annagaa kuu baahana imow oromo damba xabad ha ku ridin wallaahi oromo cadow ma Soomaali baa cadowa ee imow daafeed gabdhaha cadcad adigu shan u guurso kontanka wiilo garra markay yimaadaan shan ugu guuriya gabdhaha shan على ويلك شن قبل هذا عد إن بلوغ عليه سيا ماريان جد كفديا قبلهنا حقوق في سنة يكون دلايه إذن كسيا قبلهنا بلايه إن قد قدودنا دوم السيدين آخر الله جسر عيريه أو نارت جهنم وكوكا كأها أي قبلهنا كف سنة جروا إما هذا قبله إن بلوغ له الدجل على إذن هيا قبل تيمو هذا مركز صفران أدمود إن ما أركتي حور العين آخر صار ما أي نمن ماريانو مدمدو فالفال حنكفسي يدلكو هايان إذن كإذن لا دشان كالي قبدا غورغور سدا oo wiilal geesiyaala ka dhala taasna intaasna waxaan leeyahay gacalka iyo geesiyaasha raxweyn guurtideeni sare iyo garan leeyahay tan kale Puntland waxaan soo noqonaa marka galmudug ay sideed kula heshiisay Puntland misana aad ugu gudbisay raxweyn Puntland ay qaabkeed raxweyn uga soo kaxaysay galmudug oo u tooganaysa taas waa su'aasha qof kastoo raxweyn inuu isweydiiyo ay mudan tahay haddii adiga jaga laga siinayo galmudug maxaa shalay lagu siin waa saaqa dafar ku dhaay ee hay baa tahay si jeedso daba jeex bagagagaga BKM galmudug ay tankis waa ka qabaa diya malihi laakiin xidigaad iigu bedelay ka bacdina haddii general ato maymay tahay oo joogtid galmudug xisaabta waxaad ku darsanaysaa mooriyaanka jidka fadhiya qoriga wata amarkiisaad ku shaqaynaysaa laakiin game baa lagu la ciyaaraya beeraha shabeelle inaadan xoreynin baa la rabaa gabdhahaaga indhaha buluuga ale halkaas lagu kufsado 100 isbaara la dhigto wax walba lagu sameeyo adigana aad noqoto general ka amar qaadanayo mooriyaan jid fadhiyo maxaa dhacay mooriyaanka deegaanka u dhashay adiguna maqaarsar baa tahay haddaad lafta garan maqaarsar ku caynaysay maqaarsar kii hore ka xun adiga ah galmudug baa ku soo hartay galmudug cadaawad iyo xumaan bay diyaar u yihiin dan kale inaga leeyihiin mirso sahro suuf dhagaa gashano abayno suuf dhagaa gasha I love you so much you know that marka reer galmudug waanu idinka aqbalna cadaawadiina xumaatadiina kii kursi idinka qaatana waa idin barya daba jeex ku dhufta ha kii raxaweena ee kursi kiinaaba ku fariisto waa idin barya daba jeex beerka kala dhaca garra iska qabsi gali maaye iska nasta waraan waa yaa magta mashruucan hawiyaan la yaaba nima waxaa jira iyagana dhulkaas Ethiopia Kenya dago oo la dhaho gugundhabe hawiya laga dhigay moogtiin mashruuci hawiya la galiyay hadda garra loo soo jeestay garow digadigo madreewina loo soo jeestay kuwan abtirsiimay leeyihiin waxaan abtirsiimo leen meelaha ka raraadsada koodha intaad garra iska dhaaftiin waxaan abtirsiimo leen raraadsada mashruuca ku dara waa mashruucan dhamaaneen soo marka waxaan ilaahay walaalayaal waxa soo dhan waa qalad waana qalad hadda ilaahay waa qalad wallahi waa qalad kursi lagu ma siinayo sumba lagu siinaya mid kala jirta galmudug anaga heshiisay nala qaadatay okay xaadir wuxuu doonaba heshiis ku ahaaday bal fiiriya qayaanada labaad ee reer galmudug nagu wadaan dad 58 qof lagu qiyaasay ayaa xabsiyada ugu jira wali mana aysan soo sii deynin kadibna maxay dhaheen 40 aan u gudbinay Puntland ma ogi wax kala ma hayno bal hadu fiirsaya
qorshe labaad baa jira marka reer galmudug dadka galmudug joogay reer maylaano ana qorshahan saddexaad hadda idin sheegay reer galmudug godobtay galeen bay og yihiin waxay soo og yihiin in shabeelle mooryaan ka joogto sababta idinka la idin siinayo ma taqaanaa jagooyinka oo la idin barbaryayo la idin celinayo dan kale laga amala lacalla hadday xanaaqaan dadka aan BKM ka la dhacmay ka dhasheen haddii ay xanaaqaan oy dad nooga mooryaan dad maba ka joogaa bargidre shabeelle mooryaan le ka joogto mooryaanta joogto shabeelle na laga dilo dadan ku aarsanaan rabnaa waay haddii hal mooryaan la dilo 10 nin ayaa la idinka soo qabanaya ka bacdina daba jeexa la idin la dhacaya yani idinku xabsi kor ka furan baad ku jirtaan rakaataana la idinku haystaa ninkii caqli leh hadda korna waa oo raxan weyna Puntland iyo galmudug fadhi kuma yaalo nin walaalkaa dilay aabahaa dilay adima ku arxamaya war kuwan daba jeexyada lala dhacay dilka toogash la iskaga xukumanaya adima ka fiicanta ka soo baxa waanu idin niri dib ha u noqonina soo afantema iska soo baxa soo dhaqaajiyo dhulkiina imaada beerihiina war al-shabaab waa 10 wiil beerihiina shabaab ka dulkiciya simple is that dhulkaaga xoreyso nabad ku noolow ninkan dhagaxa korkiisa degan ee adiga daba jeexa kula dhacay isaga ku imaanaya isagoo tuugsiya beeruhu kaaga shaqeynaya laakiin maanta markaad adiga shabaab iyo mooryaanta aad u dayso beerahaagii isagana dhulkiisa aad qaxooti ugu tahay oo rikaato ugu jirto yaa is up to you hadda ka horna waan idin sheegay annagu waxaanu noqonay tacsi socoto waxba naga qaldan taasna halkaas ugu wariyoon soo ku salaamay siidaan yooniso waa salaamantaa galmudug dad badan oo calool fiyo adigoo miirana ku jiro sahra ku jirto adaa ku jiro dad badan ku jiro Puntland jaga imaba siinayaan oo kawaan way sahro Puntland waa kawaan raxaween lagu qasho aamina ma haaminin subax markay hurdada ka soo kacaan Puntland waa inay 2 qof ama 3 qof oo raxaween ay toogtaan uma soconaysa maalinta way ku faashadeen sixir baa ugu dhacay raxaween inay Puntland ka soo baxdo ma rabto laakiin annaga idinku nagamaysan dhaxaynin taas tan kale Puntland waxay jaga isinayaan dhul igama haysatee saaroy waxa shabeellaha mooryaanta joogto waa adiga jagadaada waxaad ku badbaadsanaysaa mooryaantaada taasna xisaabta ku darso aniga ma aqli badnidi ilaan jagada ani sadaqa ima siinaysid waa maqaar saare ومركا حقيقة اسكو شاقنا سهرة يا باي جاقادا waa maqaar saar mooryaantaada joogto shabeelle ayaad ku badbaadsanaysaa ee kufsigii dilka iyo dhaca ka hayso ee beeraha dado gacanta kugu hayso kuwaasaad ku badbaadsanaysaa moogi jaga jacayl aniga aad ii qabto aad iiga siinayso ma ahan galmudug ama Puntland waa another issue 25 sano Puntland dadka laynaysa oo lagala hadlaynin subax walba dad raxweena ku dhinto Puntland oo lagu toogtaa هذا هو بالله إذا ترحيله يهنق كلا تمت صعبا ما لكن بدلا أنا أذن بمايو وحن أذينا كور رحوين تي بدلا الجوجو أذر هالسوء إننا كوان كينا إسكت جوجو لا أبتهين ها إذن قلقشان غير بدلا دولة بدلا بقلين كينا ديارو شعب كرالكا أذانا السوق هنا كالصوتك ملكا وحريسو ودي تسمع it's up to you كوان كصفك كجير مركا ما حال إذن كجوجو it's up to you soo marka taas waa taas tii muxtarna waa aniga hormariyay tan galmudugna waan ku xijinay tan Puntlandna waan ku sii darnay ciidan ka gaaban doona ma jirto naftu mar bay go'daa cid noo hanjabi kartaana ma jirto saasaan u hadlayna saasaan u soo taagnaanayna ilaa aan aragno boqortooyadii eelay oo buurha ka mar labaad laga dhisay boqortooyadii eelay oo mar labaad buurha ka laga dhisay laakiin beesha eelay boqortooyada tookadan looma dhiibay boqortooyada tookadan hariina u dhiibanayna waaya hariin waa baqiil waxay ku fiican yihiin wax alla wixii yimaado tuugsi u yimaado qaxootinimo ma u qaabilaan gadaal lay u celinayaan yaa u fiirso qof hariina adigu wali ma aragto oo qof oo maxaa tiri oo shaxaada oo raali ah uu leeyahay shaxaadka anu ila sugaa marka boqortooyadan soo dhisaynaa burha kabaanu geynaynaa beesha eelayna waan ka wareejinaynaa tookadan hariina u dhiibanayna ama jirona u dhiibanayna ama waxaan u dhiibanaynaa shanta caleemood cid kale oo baan hogaamin doonto no more eelay
eelay boqortooyadeena iyaday eersatay ayada qaxooti noo qaabishay qaxootiga ay nagu soo gurtay caliyow arlaadi iyo hasanow arlaadi hadda intay la wada baxeen annagana dilaaya eelay ay dib oo dambe boqortooyo muu hogaamin doontiin boqolkii sanad boqortooyada hogaaminaysay waanu eednay taasna halkaasaan kaga baxaya guulaysta boqortooyada eelay adduunka meel walba aa ka joogtaan anigu waxaan ahay gabar eelaaya adigu waxaad tahay gabar eelaaya awowyadan waa kuwii buurha kabo korkeeda kuraasta intay dhigtaan soomaali weynka waa ka maamuli jiray fiva eelay fiva eelay fiva eelay fiva eelay gul iyo gobonimo qof kastoo raxweyno adigana waxaan ku leeyahay boqor burhaanoo saxaro dhex fadhiya dadaa ku faanaye boqortooyada eelay ku faan nacala shaydaan ku yaale meeshaad istaagto boqortooyada eelay baan ahay dhe burha kabaan ka imid dheh ku faan waryaa boqor saxaro dhex fadhiya lagu faanayaa oo maryan sacuudiga ma aragtay laga soo tuugsaday xirane adigana kaaga ku faan ibtila ilaahay ku rida boqorka beeraha ku faan boqorka barwaaqada ku faan balaaya beerka kaa gashay boqorkaaga ku faan bye bye